nolosha danyarta waa mid marka ka dambaysa hoos u dhac uu ku yimaado marka loo eego kuwa ku nool kaamamka barakacayaasha ah ee magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle. waxaan socdaalan ku gaaray goobo kala duwan oo ay ku sugan yihiin dad barakacayaal ah kuwaas oo aan haysan waxyaabihii noloshu ay asaasigu ahayd, waxaana si gaar ahaaneed danyartani ee aan la kulmay ay iga warbixiyeen xaaladooda guud, iyagoo sheegay inaysan haysan cabidda biyo nadiif ah iyo sidoo kale biyo tayeysan oo noloshoodu ay markaasi ay ku dhaqanto. kadib markii la aasaasay amaba uu dhismay maamulka Hirshabelle, waxaa habo ballaaran ay gashay dadka barakacayaasha ah kuwaasi oo ku haminayay inay helaan wax waliba ay noloshu ay kaga baahan yihiin maadaama maamul goboleed la helay, balse waxa ay sheegeen misana meeshu ay ka saareen inaysan jirin mas'uul amaba cid ka waraysa xaaladooda isla markaasina soo booqatay. waxa ay yiraahdeen sidan: maamulka Hirshabelle ee cusub inuu waraysi noogu yimid meeshaan nala yeesho ilaa hadda ma hayno, hadii aqoon daran naga tahay iyo hadii aysan noo imaanin ilaa haddaba dad mas'uuliin oo dadkan ka danqanaya dhibaatadooda ama aragtigooda in arka rabo waxa ay ku sugan yihiin marxaladda maanta ay ku sugan yihiin in arka rabo nooma imaanin. wallahi meel fog ay jiraan, adiga waa meel gadaal oo ceel isu tagaayo qofkii hadda tagana ana ka soo horiyay gadaal u marayso tobanay gadaal ka marayso oo hormari karo qofkii dabkii u saaran jalmadkii inta uu ka bislaaday jirta waa meel hadda ayuu laga soo helaa ma jiraan. xawaaladaha hadda ku jirna ku soonahay warbixintooda hadaan ku siiyo waxa awal oo koowa in horta bini aadanku wuxuu ku leeyahay biyo ceel inaan helno, ceelkaas kadib haddana caruurtii noo joogto in wax barasho noo hesho, inaan helno daawooyin, waxaan rabnaa quudin, waxaan rabnaa wax waliba umadu dhibaatootan tahay. ceela ku yaal oo mataqaanaa kaamkaas kaleentood biyaasa liira waa nagala gataa caagish kuna nagala qaa kunkina man caruurta meesha waxa lagu tawakalaa lagu kulmiyaa waaga hadoo bariyo abarta caagaas ay qaadanay iyo yaambadeeda iyo bruskeeda ay qaadanay jaygaas la soo jibinaa. hadday wax ka imaan waayaan ilmihi waa jiifaan 12 saac amba 24 saac waxay hal mar ay wax ka cunaan. mar waxa dhici karta in loo qaroofay qaataan oo beeraha mataqaanaa beeraha oo wili la soo raacdina la iiga bax beertayda oo xaab soo guraan xaabka suuq ay geeyaan waxna ay ayaga sukaynin sidaas aan ugu maariyaa. maamul goboleedka Hirshabelle ee haatan ka howlgala Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe midin ka warhaya oo mas'uuliyiin kamid ah midin soo gaareen si xaaladiinu ay u ogaadaan maadaama ay ahaayeen halkan waxa ay soo dejiyeen mas'uuliyiin hore. mas'uuliyadii hore na soo dejisay meesha horta mas'uuliyadii hore waa hadda Hirshabelle waxaan ka codsanaynaa inay soo booqdaan inay dhibaatadayna arkaan inay mataqaanaa waxna loo qabto wax qabasho ilaaha iska laakiin la dadaalo ayaan taasan ka codsanaynaa Hirshabelle. goobaha caafimaad bal ka waran. Cabdifataax Axmed Maclow, Cabdifataax Zaki, Bulsho TV, Jowhar.